السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد 10 كيني اللي حيطبنات اي مايكروسوفت SQL سيرفر كاسو كسو قادن دونو left join. hadaba left join ku waxa uu soo celinaya dhamaan rowska ku kooban yahay table-ka bidix iyo rowska ka match gareeya table-ka midig sida sawirkan nooga muuqata. table-kii koowaad dhamaan waa la soo wada qaadanaya data-dii uu ka koobnaa oo dhan, halka table-kan midig laga soo qaadanayo kii match gareysay table-ka bidix. laakiin si table-kii bidix waa la soo wada qaadanaya maadaama uu yahay left join. bal isagana aynu tusaale ka soo qaadano markaaynu hadaba halkan nimaadno kadib aynu soo display garayno daatada labada table loogu jirta. table-keena koowaad waxaa ugu jira labadan column ee kala ah department ID iyo department name, halka table-ka employee-na ay ugu jiraan shantan column: employee ID, employee name, salary, email-kiisa iyo department ID oo department-ka uu ka tirsan yahay. bal hadaba aynu isugu xidhno left join labadiina table aynu ka dhaxaysiino. tusaale ka soo qaadan aan farti soo yarweynayo qolyo content waxaan leeyahay select TPL employee. TPL employee-ga waxaad ka soo qaadataa baan leeyahay employee name-ka aad baan leeyahay. table-ka kale ee loo yaqaan TPL department-gana waxaad ka soo qaadataa baan leeyahay department name. kadib waxaan leeyahay from TPL employee, kadib waxaan leeyahay left join. table-ka uu left join-ka la yeelanaya waxa weeyaan table-keena kale ee ahaa TPL department on baan leeyahay. waxaad iskaga xidhaa markaa TPL employee dot department ID equals kula mid noqdo baan leeyahay TPL department dot department ID. hadaba su'aasha halkan taala waxay tahay sidee baan ku kala garanayaa labadiida table ka left ah iyo ka right ah? imaka left table waxa weeyaan TPL employee ayaa ah left table, halka TPL department uu ka yahay right table. sidana ay kala dhigan yihiin ayayna noqonaysaa. marka kan ayaa left join-ka left-ga ka xiga, halka TPL department uu xagga right-ka ka xigo left join-ka. marka TPL employee ayaa ah table-ka left-ga ah, isaga ayaana dhammaan xogtiisa la soo wada qaadaya, halka TPL department-ga laga soo qaadano kala inta match gareysa. aniga isku gareyna markaa koraan u soo qaado. halkan waxaad ku aragtaan in uu table-keena employee ka koobnaa 27 row, kadibna 27 row baa la soo wada qaatay, halka table-ka kale laga yimi 2 row oo ka tirsan table-kaas. haddii soo display gareeyo labada row ee laga yimi waxay noqonayaan labadan row ee kala ah export iyo productions. guud ahaan hadaba waxaynu arkaynaa inaanay ku jirin labada department name ee kala ah productions iyo export ayna ku jirin halkan, sababtoo wax match gareynaya kuma jiraan. halka table-kii left-ga ahaa ee employee la soo wada qaatay 27 row, inkastoo ayna jirin 3 row data match gareynaysa oo ku jirta department name-ka kuma jirto, sababtoo ah waxay ahayd bila department ID. saan casharadeen hore ku soo qaadanay. markaa waxaa laga fuur yeelayaa oo kaliya ta left join-ka table-ka left-ga dhammaan waa la soo wada qaadanaya, halka table-ka right-ka oo ahaa department-gana waxay toolay intii match gareysa laga soo qaadanayo oo isaga laftigiisa la soo wada qaadanayo. halkaas aynu ugu joogaya casharkeennii gabnaa ku saabsanaa left join. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.